beeyadan iyo deegaankani waa mid qani ku ah ugaadha balse midkan yar isagu wali uma banbixin waxaana la joogaa waqtigu duuli lahaa maadaama ay dhala kala dhasheen qoyskana ay ku soo biireen qaar isaga ka yaryar lana qoodin doono gorgorku waa xayawaanada cajiibka marka uu dhal cusub dhalo tii hore ayuu qoyska ka saaraya waxaanu doonayaa inay iskeed u ugaarsato una madax banaanaato waxaa laga qaadayaa bakaylaha waxaana la doonayaa in dhalaha yar ee haatan dhashay la siiyo wali waxa uu isku dhajinayaa oo laga qaadi kari laayahay ugaadhii loogu talagalay ku yaryar waxaana la doonayaa inuu isagu haatan madax banaanaado mar labaad ayuu soo weeraray aabihii mar kale waxa difaacday hooyadii waqtiga ugu badanna waxa la siinayaa dhalaha yaryar ee haatan uu dhashay tamartiisu ma yara waxaanu baalashiisa tijaabinayaa waqti badan waxaana la joogaa waqtigii baalashiisa ku cilbixi lahaa isla mar ahaantaasina duuli lahaa waxaa la quudinayaa dhalaha yaryar markoodii ugu horreysay galeerkuna waxa uu ka mid yahay xayawaanada hilibka cuna caqabada ugu weyn waxa ku noqday aabihii waxaanu guud ahaanba diiday in isaga la quudiyo waxaana priority-ga koowaad iska leh dhalaha yaryar ee haatan dhashay waxaanu u duulay si lama filaan ah markii ugu horreysay abid guud ahaan qoyska waxay u tahay farxad weyn waxa uu ka baxay xayndaabkii waxaanu ogsoon yahay inuu baalashiisu wax badan u qaban karaan maanta kuna ugaarsan karo wax badan baa ka dhiman waxaanu u baahan yahay inuu barto habka in badan hawada sare loogu jiri karo iyadoon isla markaba lagu soo laabanahayn buulka ama geedka isla mar ahaantaasina ugaarsigu uu dheer yahay kuwa teele iyo abuyeeni waxay kaga mashquuleen dhalaha yaryar waxaana haatan u dilaacayaa beedkii labaad iyadoo labada beed ay kala hor dilaaceen muddo 3 cisho maalintii saddexaad iyadoo beedkii labaad dilaacayo haddana hooyadii iyo aabihii waxay indhaha ku hayaan midkan yar ee tababaranaya mar kale kuwa teele oo ah aabihii ayaa soo weeraray kana waa aabihii oo lagu magacaabo kuwa teele waana waajib saaran inuu baro habka ugaarsiga duulista iyo weliba cunista waxaa mar kale soo wajahay oo ku soo noqday inuu tababar adag siiyo aabihii oo lagu magacaabo kuwa teele waxa uu doonayaa inuu siiyo tababar daadiisa ka weyn isla mar ahaantaasina ka yar uu isku dayo inuu isbadbaadiyo isla mar ahaantaasina aanu quusin waxaana dhulka hoose ku sugaya bal inay wuxuun ka soo dhacaan gududanaha intaa kadib hooyadii ayaa ka timid dhalihii kale waxaana u soo banbaxday inay ka difaacdo culayska intaa leeg oo aabihii saarayo midka yar ee galaadhka adkaysi badan oo malaha cadceedda iyo qabowga toona Juvenile waxa uu haabaya hawada sare waxaanu kalsooni buuxa ku qabaa maanta baalashiisa Abuyan iyo kuwa teela waqti badan ay la soo qaateen midkan yar ee lagu magacaabo Juvenile waxaanu buulkooda ku soo qaatay waqtiyo badan oo adag isla mar ahaantaasina waxay siiyeen tababar adag walina waxa uu ku jira gacantooda tababarkan waxa uu socon doonaa ilaa muddo 3 bilood oo Juvenile waa mid ka yar qoyskii wali tababarku waa u socdaa waxaana la isku dayaa in la gaarsiiyo heer oo khibradiisa ku gaarsan karo isla mar ahaantaasina uu ku cilbixi karo guduudanahu wuxuu raadinayaa fursad ugu dambeyntiina shil ayaa dhacay
ma dayaco waqtigiisa. balse midka yare hal wax ayaanu ogeyn weli, waana khatarta ku xiran ee deegaankani ka jirta. Kuwatele waa uu ka warqaba khatarta deegaankani, isla mar ahaantaasina wuxuu indhaha ku hayay midka yar, waxaanu baalashiisa ku dhamanaanin doonaa gududanaha haddii isku dayo. hooyadiina waxay ku noqotay ku yaryar oo ay ka dadaysa cadceedda xoogaa hadhan u samaynaysa. Juvenile maanta wuxuu qaatay tababar fiican, waxaanu ku noqday caalamka kaliya ee uu garanayo oo ah buurta Figteeda. kadib 2 kiiloomitir oo uu duulay, waxa uu ku degay meel cusub oo buurta ka mid ah. markasta oo aanu isagu ugaarsan karin, waxa uu nugul yahay in isaga la ugaarsado. markasta oo waalidiintii difaaciyaana, waxa uu nugul yahay in isaga laftiisa la ugaarsado. waa galabnimo cadceedna waxay san ka dhigtay godka. waa mid laba oo ka mid ah shimbiraha Afrika qaniga ku tahay. waana waqtiga waagu u bariyo gududanaha. shimbiruhuna waxay isaga digayaan khatarta. midkan labi wuxuu dareemay khatarta isagoo garanay gees ay ka iman doonto.